waalidiinay hooyo aababa ubadkiina dhaqan celinta la sheegay caruuraha inta wadankii la geeyay la sii wareerinayo ka daaya halkan aad ku dhaqan celin kartaan waxaad oran kartaa oo sidee lagu dhaqan celin karayaa halkan ilmahaaga ka daaf ingiriisiga kula hadline af Soomaali kula hadal haddaad istiraada xitaa kula hadal mid jaban baad kula hadlaysaa marka isagina waad ka kharibaysaa afkiisii uu sida wacan u baran lahaa caawinadii aad islahayd caawi ama aad adigu naftaada caawinaysayna waxa weeyaan ilmahay wax u geysanaysaa midda kaleeto ilmahaagu xaq wuxuu kuugu leeyahay inaad buugaag u haysid guriga dhexdiisa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرتدى شرفت اللي وانا دون السلامية وحوغا يرى أرهار نوانسي أفاف باندقانيا أو literally ويدو ناركيسين مالها مينت كوهر با ليسو قبتولي يري جواهر هذا محاون كلا دادينيها وريسي كذا جواهر أو قف روح عن آدو جعال هاي darteed ayaan kaliska ku aqbalay marka wixii goldalola aad nagala kulantaan raali baad iga ahaan insha Allah bidmillaahi kariim waxaan doonayaa inaan u yeero Jawaahir Abdullah Faarax habre waxa fiicnaan lahayd inaan isa soo yara xasuusiyo moogtahay taariikhdeeda dheer ee xagga tacliinta kaga jirto Jawaahir in badan oo horta reer London ama reer UK waa qof aad loo yaqaano oo tacliinta iyo maadada waxbarashada lagu yaqaano intii wadankii iyo dhulkan waxay joogi jirtay way inoo sheegi doontaaye waqti aad u fog oo 60meeyadiiba ah haddana waxay aad u soo degtay oo joogtay intii 90kii daqiiqii ka dambeeyay oo muddo dheer marka xaafad Ealing la yiraahdo ay macluumaad ka ahayd taariikhdeeda iyada inoo sheegi doonta laakiin waxaad idinku ku baraarugsanataan qof maxaan kala tacliinna takhasuskeedu yahay muddo dheerna dadka wuxuu soo dhigaysay dibadda iyo gudaba intan dambe waayahan dambena mashruuc aad u qiimo badan oo ma garanaysa iyadu inoo sheegi doonto ayaa ay ku jirtay marka horta qofka caynkaas inay Jawaahir tahay ku baraarugsanaada حبرين السلام عليكم وعليكم السلام سو ما في عني فرح سنة صدني هذا ما شاء الله ما شاء الله فرح سنة إنه هذا يسكر نقولنا يسنمي بلوجي مركي عن محمد بلا بيبا أنت إنجليز كإيمي تذكر أجوه الريا ريرك أجوه الريا إن شاء الله أنا جوير الصبر باري جورو ده يقول عسومي شري مركان بريستل وحكي ديجنا أياد أحي dadkii markii ugu horeysay Bristol aan ku noqdo aan buugagteeda u soo bandhigo aan leeyahay la ii raadsho reerka ayaad ka mid ahay waa ii timaadeen walina waa wada soconnaa heerkaad maraysana ilaahay kaaga sii badiyo hamre waxaan doonayay in aad uga sheekaysid ama aad uga warantid dadka waxa kugu dhaliyay imanka buugaagtan faraha badan ee aad samaysay sababta aad u samaysay maxaa kugu dhaliyay waxa weeyaan waa taariikh aad iyo aad u qoto dheer oo waqti fara badan ku soo qaadatay waxaan ahaa hablii ugu horeeyay ee iskuul lagu daro iskuulkii Burco Girls School la oran jiray ee boarding ahaa idna aadan noo ahayd teacher assistant bay ahayd marka macalinka Ingiriis bay ahayd macallimiintii marka wax loo dhageysay waliba Scottish bay u badnaayeen marka waxaan xasuusnahay macallimadayda ugu horeysay ay idni nooga turjubaantay noo sheegto waxay nagu leedahay anagoon garanayn waxay sheegayso baa iska ay soo hortaagtay saf baana la gashay safkii ugu horeeyay iskuulnimo good morning children bay tiri miyaanu garanayna waxay sheegayso idna tirina waxay idin tiri good morning waa subax wanaagsan caruurta ay ka daba dhaho waxaad ku tiraahdaa magaceeda inta sheegtaan good morning Miss McLaren anagoon A iyo B iyo C toona garanaynin the first
full sentence aanu ku hadallo oo af ingiriisi wuxuu ahaa good morning Miss McLaren. marka haddaan su-aashaadii weydiisay dib ugu noqdo waxaan ahaa dadkii xafiiskii manaahijta ee xamar markii af Soomaaliga laga dhigay manhajka qaranka loo soo ururiyay la soo xalana intaanu galay af Soomaaliga imtixaankii ugu horeeyay aanu galay aanu ka soo baxnay marka dadkii jaamiciinta waqtiga ahaa ee jaamacadaha ka soo baxay ayaa laga soo selectoray laga soo saaray 7 aan ka mid ahay Saleeman Gaal baa noo ahaa waanaanayse Saleeman baa noo ahaa noo ahaa meesha maamulkeeda haystay halkaasan ka bilaabay qorista laakiin waligayba waxbaan qoray markaan iskuulka bilaabayba dadku badanaa dadkan inaga horeeyay ee advanced waxay ilmaha og yihiin halkuu hadhowta mari doono anigu imika markaan xasuusto faygarkaygu wuxuu ka bilaabay faynuus hoosti iyo habeenimo aan casharkii la ii soo diraba ay hooyaday faynuuska kaliya aanu leenahay intay soo dhigto miiska kaliya ay tiraana fadhiiso wixii lagu soo diray samee waa qori jiray marka waan xasuusnahay Oxford English book 1 ila 6 baan loo dhigi jiray year 1 ila 7 baan gaari jiray marka buugaagta ugu horeysay sidaan u qori jiray wali waan arkaa this is a book, this is a pencil, this is a table, the book is on the table, the pencil is on the table, the ruler is on the table haddana markaas xagga hoose la gelinaya the pencil is under the table, the ruler is under the table saasaan wax ku baranay ka bacdi qoraalkaygu waxaan isleeyahay haddaan imika dib isu fiiriyo waagaasuu bilaabmay laakiin mar walbaba markaa xafiiska manaahijta aan u qoraynay bugaagta waxaan ka mid ahaa guddiga taariikhda historygan qori jiray geographyga marka qolada geographyga history qorta ayaan ahaa haddana markaan gurigayga imaado haweenkan ka fikri jiray hooyooyinkan ka fikri jiray maadaama aan xaawali anigu ba ahay oo ogahay baahidoodu inay ka badan tahay ragga oo idinku naga horeysaan oo aanan wali talaabo qaadin waxaan mar walba isulan jiray bal maxaad u qabataa sida xaqiiqdaana sidina lagu soo barbaariyaa ahayd gabdhaha ugu horeeyay waxaa loo soo diyaariyay inay gabdhaha hadhowto kor soo qaadaan oo wax baraan oo caawiyaan oo ay laf dhabartooda noqdaan tiiba markaa role modelkayagii aan naloo soo diyaariyay ayaan ku dhaqaaqay waxaan qori jiray guriga markaan imaado bugaag gaara oo aan shaqo ku lahayn taadeen dawladdu noo dirsatay markaa kii ugu horeeyay aan qoray wuxuu ahaa in soo ururiyay buug ah ka gameska ciyaaraha marka macalinimadeyduna waxaan Bristol ka galay 3 sanadood teacher training college 1963 ila 66 haddana markaan wadankii ku noqonay 7 bilood ka bacdi waan qalgalay reer yeeshay waan odaygayga waxaan loo diray Mareykan jaamacad Boston University ayaan dabana halka haddana ka soo qalin jabiyay marka buugani waa 108 ciyaarood waa ciyaarahan anigu ciyaari jiray inta badan mid aanan ciyaarin waa yar tahay waxa aan ka bilaabay ilmaha yar ayaan u fiirsaday hooyadu siday u soo tababarto aabuhu badana caruurta inamadu markay koray noqdaan ayuu aabuhu kaalintiisa galaa hooyadu inta ka horeysa wiilka iyo gabadhaba way isku haysaa laakiin marka wixii ka dambeeya markuu koray noqday aabihii uu isku xirmaan gabdhaha ayay soo bari jirtay marka wixii la barayay caruurta marka yar yihiin baan u fiirsaday waxaan arkay ilmuhu markuu socod baradka yahay hooyo hees bay u seeyaysaa waxay leedahay intay hor socoto
هذا هو صعود برد أو رد برد قرآن شعسي عريسوق أبو قرآن شعسي عريسوق أبو مركز علمه كر ودو أرديا مركز سوق أبطو وسوق أبطو بكرو قارسة دون كنيسة مركز ماشى واحد شراء حدير كي أبوه الرئي هو المهدي أي هالكاك بلا مية لقدي قرآن شعسي عريسوق أو repetitive كل علني سنة المية هالكاس وأفكي أفبرد كينا أقبلها بيسا وأن كسو قدبني وحاد شراء إن بوغا كان عياره سا وحاكم مذا عياره فرح قلين عياره دقنين عياره كدس عياره الله يابلي عياره si kale u cilmiyeysano xaq diineed iyo xaq dhaqan male marka waxa kamid ah kuwa مثلا تقصلك فرحة قلينتا يا الميساس هذا واحد فرطة يدوم السداس هاي مش السدا هذا يساس تهاي ومسكين هذا يساس تهاينا وحنشيرين وين بدلي وحيابان كبدلي وايد وححضر تسلا وحين واجا أورنجرية وحدير تلدوني اللي هذا وأكل دروكسين مركا وحال أورنجرية وهم جرا حيرة كلا الصبح أجريسيف محاوجو عن حيرة عن لقى الصبح يهم جرو محاوجو كيم وكبدلوا حدا وأكلين كلا ليس مركا إلما أكلين كليه يا وأكلين كلا ليس وأنا كلين ليس وكل وضع كلين ليس كعروت هذا أركتال مركا عيار سينا يعني أنت تنقرني وحيابها سنكون ماويلية وحالي هذا طبعا هذا إيك وكدس المهبة دبدي سيجي وسوتش سريع صاحوا دبدي سوتشرا هانكو عياري نا بكسر قصلوا دعيان يا وكدس يلقى ودقستي يفرحت قلين waxaa jira kuwa ka sii waaweyn caruurta waaweyn ciyaaraan waxay gacmaha isqabsadaan way wareegaysanayaan waxay leeyihiin qofba dhexda la dhigaya waa la huwinay mar la huwinaya marka qof kaliya ogaan kara qofka amarada la huwiyay dhexda ku jira inta kale indhaha isku qabanaysa way kala qaadayaan indhaha marka ولا وريقة وحلا ليه وحماش هردا مددبا مدوغاق مداميرتشنا وحماش هردا مددبا مدوغاق مداميرتشنا مركزي وريقة عروضة إنجليز كيسكو إيلين بان كدقيا أفرليا بات السنة ضد ويوذي يقانان هيسها عيارها وحانا لبدراد ليه kuwa u hirgaliya waxay ahayd markaynu nimi inagu dhaqankan iyo afkeena lama qadarinaynin waayo inagaan waxba isqadarinaynin inagaan wixina dabad galin oo ka dhaadhicin dawladaha oo ka dhaadhicin dadkaynu u nimi marka waxay iga ahayd caruurta Asianka waxay leeyihiin macallimiin la socota oo afkoodii barta gurigoodu waa Hindiya iskuulkuna waa Ingiriis marka labadii dhaqanba way isku wadaan ayaydiiba u joogto awowgiiba u joogo habartiiba u joogta way isku wada xiran yihiin marka kuweeni markaan arkay inay meeshaasi xoogay ka dayacan yihiin macallimiintana training baa loo sameeyay in badan baan ka shaqeynay guddidan baan ku jiray support team EAL English as an additional language macallimiin ah oo la isu wada keenay baan ka mid ahaa ka buugtaas la isticmaali jiray aan sheekooyinka hadana aan idin soo koobe wax la dhameyn karo maaha qoraalkayguna waa wax isdaba jooga waana wax educational ah waa curriculum linked manhajku ku xiran yahay buug kasto aan qoray waxa weeyaan buug dhaqankiisa afkiisa noloshii wata aynu u baahannahay inaynu caruurteena ka dhaadhicino waalidiintu u soo jeestaan inay caruurtooda buugaag guriga hor ay arki karaan qof baa ku jira iskuul buugga markuu saa kala furo marka buugaagta iskuulka kala furaya waa cadaan waa ajnabi waa dadan hooyadoodu ekayn aniga maalintii igu horeysay macallin cad bismi kaleera ma yahay oo himbaan ka waray waa hooyada uma ekee iyaduna waxay isleedahay soo dhaweey way soo dhaweysaa kubad yar soo tuur qabsaan isiraahdaa marka igu soo dhawaato ayaan dabadna qayliya oo marka caruurteena bal hadda ka sitay oo ka fikir maalintii ugu horeysay fasal soo fadhiisteen oo qof eeg aan arkaynin waa inay haystaan
wax markay guriga ku noqdaan xasuusinaya waxay ahaayeen muujinaya waxay ahayd jeclaysiinaya waxay ahaayeen markaasay dadnimo yeelanayaan oo nolol yeelanayaan marka kuwa ciyaaraha bugaagta waxaa ka mid ah caruurta marka loo dhigayo primary age-ka dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe marka loo dhigayo waxaa jira wax la yidhaha life cycle nolosha nolol wareega marka life cycle-ka ilmaha Soomaaliyeed ma yaqaano Soomaaliya manhajka ma xasuusnaa anagoo dhigayna wax life cycle la yiraahdo waa science waxaa arkay caruurtii oo fadhida meesha oo yaaban waxaa la barayaa siduu raho siduu u samaysmo marka hore waa madax xareedaad marka dambe 2 lugood buu la baxaa calool yaroo kuusan buu yeeshaa 4 lugood buu yeeshaa dabeedna uu boodboodaa ilmihii intaas la barayay ee hadhowta la odhanayay sidee u kala horeeyeen siduu rahaasi u samaysmay kala isku xiji ma garan karo marka waxaan xasuustay hees hooyo ay ku barayso inanteeda gabdhaha nolosha ay soo maraan wax yaroo beribaan wax yaroo dhulka jiifta ahaa baa la yidhaahdaa marka waxay ka bilaabmaysaa beribaan wax yaroo dhulka jiifta ahaa beribaan fadhi barad futa buuran ahaa qosol bay ka wareegaan marka inta ay maqlaan beribaan rukum reerka ku meerta ahaa beribaan bilig raamale riya raacda ahaa marka waxa oranay caruurta markaad u akhrido waxa soo kaleeto hadana weerad u sii sheegtaa raamuhu waa maxay hooyo haday inta af Soomaali garanayaan hadii kale Ingiriisi iyo Soomaali waad soo dari kartaa beribaan bilig qaraar cirisa ahaa beribaan hablaweyn hablaysa ahaa marka hablaha habtoodu maxay la hablaynaysaa gabadh majuur oo waqtigii gaadhay gabadhnimada ay isu dhigaysay haddana beribaan timatidcan ragga tacabta ahaa marka waa markay haasaawo iyo waxaa bilaabaan guur soo dhow yahay beribaan aroosad af madowla ahaa marka waxaa yidhaahda yarkaalka ku koray aynu inagu maqada fish iyo chips iyo waxbaynu ku sheegnay caruurteena halkan ku kortay waxay yiraahdaan maxaa afka madow waa maxay hooy ay afka madow baa qurux badan annaga weeye laakiin waa la casaystaaba waxba la marmarayaan beribaan aroosad indha kuulan ahaa beribaan afar dhal afaada ahaa beribaan shandal sheekaysa ahaa marka waa life cycle-kii ilmaha haddaba waxaa dhacday in halka kanaynu joogno haddaad gabadha ka hadasho waxaa lagu odhanayaa sexist baa tahayo gabdho kaliyuunbaad ka hadlaysaa oo inamada xog kamaad sheegin marka kii inamadana waa kan inta hore way iskaga mid inta hore oo dhan way iskaga mid beribaan xiirane xurgufleeye ahaa waa wiilkii beribaan nin yar oo nirgo raaco ahaa beribaan nin weynoo qurux badane ahaa beribaan guurdoon haasaawo ahaa beribaan aroosow wax arrimiye ahaa marka isna 4 buu dhalay 5 wuu dhalay way iskaga mid xagga in aad u sheekaysid in aad wuxuu daawanaya la daawatid inaad munaaqashootaan oo wada hadashaan inaan cidi idin soo kala dhex gelin ee isku xidhan tihiin link wax la yiraahdaa jira aduu kaasi kaalubo khalaas macalinka iyo ardaygu link bay wada leeyihiin waa sida silsilada marka la isku xidho miyay kala furmaysaa uu kugu xidhan yahay ilmahaasi waxbaad bari kartaa kaan kugu xidhnayna ma bari kartid ilmahaad adigu dhashayna waa laga jiidan karaa
wax kala ka qaadan kara telefishanku la saaxiibaya markuu ugu yar yahay ugu hawl yar yahay laakiin kuwa ka waaweyn buu la saaxiibi karaa iyo meel kale ka waaweyn oo khatar marka caruurtii isku xidhnaanshaheedii number 1 bugaag guriga dhexdiisa oo waliba kuwii dalkii iyo dadkii iyo dhaqankii tusaya adigii oo la hadlayo afkii kula hadlaya waxyaabo badan baa la iska bedeli karaa adigoo kalgacayl tusayo qaylo iyo dagaal iyo canaantii kululayd aanay jirin anigu canaan baan ku soo koray ma oran karo canaan liibaan ku soo koray laakiin waxay ahayd nolosha caynkay ahayd baa waxbayna i tartay wax weyn bay i tartay waxaan ahay mabaan noqdon haddana hooyada igu qaylnaynin أبغى ما بقيل رقم قيلي أنا ده وين قبض قيل قيلين شريه